عن عالسي هي هذا واحد كانت فيديو يهور هذا كوران دوبي إن السوق قالت أوتر هذا نكان هبر قدر ما أهان عاير ما أهان درد ما أهان ما هالكابي كاميرا يسار تعرفت أنا شرف بقيتها هي ما أنت dadku waxay kugu yaqaanaan inaad dumarka la gooskoosato inaad dumarka aflagaadeyso inaad dumarka cayso nin raga markaad isqabsataan qabiilkooda ha noqdee gabdhaha ku qabiilka ah baad inta taleefanada kala hadasho oo lacag siisa baad tiraahdaa live-kayga soo qabsada hebel waan ka soo horjeednaa dheh candha calasay baan taageersanahay dheh futa Soomaali cid taageeraysa hadda aniga ku dhahay geedka aad gaarto mira ka gur aniga nin cayr baan ahay xiniyo cayr baan saaranahay cayr ka sukuuna Soomaali baan saaranahay maxaad iga qaadi kartaa meesha aan madaxa saa u galiyo 100,000 oo wiil oo cayr ah iga horeys la dheer dhalay nasab dhiman haduu jiro waa adiga waan abtirsan karaa in hebel meesha ku dhashay awowgii ka abtigi ka baan dhigi karaa ma abtirsan kartaa magacaaga Soomaalida waxay ku taqaanaa candha calasay hebel calasay wax kale lagu ma yaqaan hay nin weyn oo oday baa tahay gabdhihii baad la googoosanaysaa ilmihii ka yaryaraay baad la googoosanaysaa maxaa tahay sharafta alla ka qaadi dadka adiga kugu levelka ah Soomaaliya maanta kuwa nisbay madax ka yihiin waa wasiiro waa xildhibaano waa madax sare maanta meeshaas baa taagan tahay adduunkii oo dhan baa kula yaaban oday kasta ee habar gidira marka la hadlo oo qadiyada Soomaaliya sanaag iyo cayna ka shaqeysanayna wuxuu ku leeyahay ka baan ciibay ninka naagaha la goosgoosanay ee gabdhaha aflagaadeynay hay ragii kugu loodka ah kuwii ka yaryara maanta federaalka Soomaaliya wax ka yihiin oo maamulada galmudug wax ka yihiin adigu maanta maxaa tahay waxaad ku soo go'doontay TikTok inaad timaado maanta biiri oo aad gabdhaha la goosgoosato oo 24 saac qabiil aad cayso aniga Idris Baba la yiraahdaa adduunka ana ugu madax adag adduunka hadaad tiraahdo Idris hala riboodo hadaad tiraahdo Idris akoonkiisa laga xirayaa inta hadii ciwaankayga la xiro Idris Baba oo nool yahay ana hadda ku dhahayo laandheero dhalay kibrani ah markuu soconay aan hoos fiirin sanka taaga cayr ah baana oo ilaahay mooye cid kale aan ka baqay waxaad hayso soo daa laakiin midaan ku sheegayaa meeshan wax la yiraahdo erer Soomaali ma jirto ana hadda ku dhahay erer Soomaali filkiisa ma shaqeynayo ama lacag qaado ama ha qaadan Idris Baba la yiraahdaa kii ka saara baan ahay jinkan erer Soomaali kii ka saara baan ahay Soomaali ha noolaato waxaan rabaa inaan weydiiyo asab muxuu kugu sameeyay aniga kow asagan ka bilaabay maadaaba qof maarta gamer oo dadkaan cayro fujuuf raadiyaani waxaan er ulaalow waxaad igu kacsan waa agtoo dhibaatada ugu sameeyna waa aragteen kow oo ilaa habeenkii ilaa hadda wuxuu ugu sameeynayo waxaan ku ruurniyo indiriso wiil walaalka yaa tahay dadkan aada ugu weyn in adeero game u baahana ma fahanti horta hoos oo galasha kastay wuxuu yiri dhageyso mid baan ku sheegayaa horta anigu cayrkan aan sheeganayo miihi oo ii dhaartay gubooyana ugu yiri kow kale wuxuu kale ugu yiri haddaad rabto inaan game ku dheero waa inaan siigaysanaa si toos ah daga daayro wax ma qarinayo waxaan ku ri aniga nin baa ay qaba fiiri waa inta marka la ifruun waxaan ku nin ay qabee maxaan soo bari waxasta biyo mara u furishay ma hasta kor waxasta samaha daayr ma hasta mara kor diyaarad isu diri jirto bismillah barigaas wuxuu ugu yiri aniga waxaan u baahanahay bari waa inaan ii siigayso waxaan iri qofkan ayro kala sheegana haddana waa qof iigaaga dad qofkaaga hor ilmaha dadka shisheeyaha ma u maleynay marka waxa ay waxna ha ceebayn waa in adeerka nin kala qaba haniyay afariis ka bax afkaygan xirto sibadan xirto ma fahanti marka ninka halkaas uga la qaaday maalinkan inba ka dambayda lugta isaar ma fahanti meel haddaan fuuro waxba ku qoraa waa ogahay waxba sas u wadaa waxba joornaya marka ninkan haddaan naagaha jilicsan haalaha ja ratakato ugu haysala ma fahanti anigu ma jecel jira والله تلا marka kadabka bohay afkeediya weynaatay waxay xeeray lama arko sawirkii rakaatada lagu haystana banaanka maarta la keenay hadii ma kala jeceli nin adduunyo joogo waxa aragti ku laaban Soomaali wax badan oo ka yaabay ma arkaysan inta nooshin social media xaaladiisu waa sidaan aan calasay rag hadday isqabsadaan inuu gabdhaha masaakiinta iska soo hormariyay mooyee weligii ma arkaysin daahir calasow عند عرس وأنها ما قاعيان وعيارنا وإستجا توصو أبارة ما أركيزي هرت كبرنا ولا شيء المساكين تأه وح أقوق بما أنت ملها عني عقل حما قاضي وجبر ولا شيء والله يبالله يطلع رمضان بالوجه جاي وحبه قبل وحكلي أنكو سناك روحيت أنا عوان كي إسكبلوا أنا ودم بابي عنا إيه سهري عنو هرت كبرنا ولا له كا سو كتاب القرآن الكريم كما أهل
Soomaali jimcaha ma ahan soo bil Ramadaan ma ahan ما أركتان صو دحر كمان أنا قل كتاب القرآن الكريم كان وهاي والله هي ويقول بالله هي ويقول الله هي قبلنا واحد الشيء يسكنوا صن هالحبة كجرين أو أنا إذا ولي جيد ولا هذين أو إيفن السياسة حتى أنا كدودين كل هذه قبل ولا اللي دون تعباية حالي هبر ولا بهرور كيتون تقبل يدو هاي السكرابة كل ما تشعلي أنا حمام كل ما تشعلي شرفت هذا إلى الله لكن ظاهر على سو شرفت هذا كعياري يا قبل ما أركي شلي ظاهر عن علسو ما ترى ما قاعد عيار يعني كاوصمنا باهي هي سوقاته عن علسو شلي مرة رياكشن لقى بحني أفر هبلود بوضح لك تاجنا السجع أفر كوها نكها أو رق إسكت عيني وكل إيميل تاجنا أركيسي أنت رق إسقاب صدق قبلها أي قبان قبلها أي قرابة هين كوي أصحابتي مو كسمرها هذين ولا أفر هبلود والسجع وشن كويه قلبي ودساريين حركة رقم ياها معها تا ما تهدو واحد كو غاني إنسان عنده على السوق مال وقبصده ولا يهجيد وقبصده شغلات الدرس ده بعد سوق قرالة الماما مساكينة كو اسك فنانين قبل مساكين وضير وحبيسن بدول جا درعيد كده جاندي فنان ده شغلات دي سوق قرالة وحان كاكينة الدرس بابا محايجي الدرس بابا شغلات دي محايجي كاكينة يا هذا كشر لاين أي دلبان هي أنا وقص لا أنكو أفليا ديني يعني ولي هذا صومانها أفريقيا اللي جار عنده صومالي محمد ونكا قف إسلام مسلمي صوم مسلمني صو يكون إسلامتين نكي دارت نكي آمني ويا بكسي درا صومالي هنولات لكن أنا أقول جاي فاش أسحق معاي قبيل صومالي دوري معاي خمس شيء حتى أتمناك بالله oo magaca sax sheeganayso ya oo qurbaha joogto waa Sacad Muuse ma aha Ciise Muuse waa Sacad Muuse waa qolada ka dhaltay hadda aragtay ma sheeganayso halkan ka buuxaan telefonkayga waa Sacad Muuse mid xashiish ku cabaysa TikTok dhexdiisa oo soo geliyay iyo Facebook waa Sacad Muuse tii ugu weyneed xashiish abti Sacad Muuse ugu weyneed ba ka dhigtay madaxweyne waa ayaan xashiish weyn